ila jira wayna timide weersan igu saba ha 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 weersan igu saba wali waxaynu ku sii dhex jirnaa waa ahmiyadii guurka guurku waa guntin aad u qiimo badan kaasoo waliba kulmiya lab iyo dig ama rag iyo haween ku ahaadaba Allah subhanahu wa ta'ala ayaa jideeyay waxayna gaareen labada qofoodi guur uu dhex maro nolol aad u qiimo badan haddana qadaran ay ku dheehan tahay taasoo waliba deganaansho jacayl iyo naxariis waarta abid inta ay nool yihiin ay helaan guurku waa nolol u horseeda labada qof ee islaamka ahi deganaansho maskaxeed iyo mid jireedba intaba taasoo sababtay inta ay hantaan ama ay haleelaan nolosha ugu qiimaha badan dunida guurku waa guntin adag oo islaamkuna faray kaasoo noo horseeday raalli ahaanshaha Allah subhanahu wa ta'ala isla markaana guurku waxa weeye sunnihii ambiyada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ayadkayga waxa kamid ah nafteena inaan ka abuurnay xasiskiina si aad ugu xasishaan waxaana yeelay dhexdiina kalgacayl iyo naxariis daliisha waxa ayada ka hadlaysa waa suuratu ar-rum ayada labaad